dhowr saacadood oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cusmaan aadan cadde ee magaalada muqdisho kadib waxaa halkaasi laga soo dejiyey meydka allah u naxariistee wasiirkii hore ee wasaaradda dastuurka ee arrimaha federaalka ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil. garoonka waxaa ku sugnaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre, ku-xigeenkiisa kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiyey ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka soomaaliya mahad cabdulle cawud, xildhibaano, sanataro, saraakiil ciidan iyo marsharaf kala duwan oo garoonka ku sugnaa. meydka marka la soo dejiyey kadib waxaa salaada janaasada lagula tukaday garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cusmaan aadan cadde ee magaalada muqdisho. xildhibaano, wasiiro iyo xubno kale oo isla soo shaqeeyeen wasiir xoosh ayaa ka sheekeeyey taariikhda ay ku yaqaanaan wasiirkaasi, iyagoona sheegay in uu ka baxay xukuumaddu hogaamiyo xasan cali kheyre nin jecel horumarka dalka soomaaliya sida ay tilmaameen. Soomaaliya wadankiisa ku dagaalamay oo weyn ka qabtay hoosh wuxuu ahaa saaxiibkii qabta haliyey qaran oo jeedaan dawladii oo dhan baa diyaar waxaan u rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed in sabr iimaan uu ka siiyo qaas ahaan ehelkiisa iyo reer xoosh oo dhan anoo ku hadlaya magaca qurbo joogta Soomaaliyeed siiba Canada iyo Mareykanka. wasiir xoosh waa la miskarayn doonaa. waxaan u joognaa tacsidii ama inaan soo dhaweyno meedkii wasiir jibriil xoosh. waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. wasiirkana waxaan ugu rajaynaynaa inuu ilaahay jannatul firdaws ka waraabiyo qoyskii eeladii uu ka baxayna waxaanu leenahay sabr iimaan Allah ka siiyo. ilayhi raaji'uun waxaan ugu tacsiyeynayaa ehelkii qaraabadii iyo saaxiibadii iyo ummadda Soomaaliyeed geeridii naxdinta leh degdegta ahayd ee ku timid walaalkeen wasiir cabdiraxmaan jibriil xoosh. wasiir xoosh wuxuu ahaa saaxiib aad iyo aad u qaali ah, nin aad iyo aad qaranka ugu shaqeeyay, daacad ah, Soomaali ah. waxaan rabaa inaan halkaan tacsi uga diro dhammaan shacbiga Soomaaliyeed, gaar ahaan xukuumadda, eheladii uu ka geeriyooday, qoyskii iyo saaxiibadii intaba, iyo hay-adaha qaabilsan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya arrimaha dastuurka, dib u eegidda dastuurka u qaabilsan dhammaan tacsiyan halkaan uga diraya. waxaan leenahay Allah u naxariisto. ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane xasan cali kheyre. waxa uu tacsi u diray ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, isagoona sheegay in wasiir xoosh uu ahaa wasiirada ugu firfircoon isla markaana ka shaqeynayay horumarka sida uu tilmaamay. cabdiraxmaan wuxuu aniga ka mid ahaa wasiiradeyda ila shaqeeya. waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego marka dalkan waxa aan ka raadinayna waxay tahay in la xoojiyo midnimada iyo xorriyadda ummadda Soomaaliyeed. cabdiraxmaan baa tusaale u ahaa. dalkan waxaan u taaganahay habeen walba u soo jeednaa in qabyaaladda qarannimo lagu bedelo. cabdiraxmaan xoosh jibriil baa tusaale u ahaa. dalkan waxaan ka shaqeynaa in shuruucda Soomaaliyeed sarreynteeda laga shaqeeyo. cabdiraxmaan baa aasaas u ahaa. dalkan waxaan ka shaqeynaa in dastuurkiisii la dhammaystiro. isagaa ahaa aabbihii shaqadaas hayay. dadka Soomaaliyeed inay isugu ka mid ahaadaan cabdiraxmaan baa isagana tusaale u ahaa. musuqmaasuqa in laga fogaado cabdiraxmaan xoosh jibriil ayaa aasaas u ahaa. intaasi kadib meedka wasiir xoosh waxaa loo soo qaaday isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo lagu aasay ugu dambeyntii.